والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. marka hore komishiga doorashooyinka qaranku wuxuu mahadnaqayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo suurta galiyay waqtigan inuu isugu nimaadno xarunta komishiga doorashooyinka qaranka Somaliland maanta ay bishu tahay 28kii bishii 11aad 2018 waxaanu aad iyo aad idinka mahadnaqaynaa ajiibka soo ajiibteen codsigeedii ahaa inaad maanta aynu halkan ku kulanno iyadoo maalin jawigu aad u qurux badan yahay waanu idin soo dhaweynaynaa waxaanu ka mahadnaqaynaa wada shaqayntiina soo dhex martay 4 sanadood ee la soo dhaafay saxaafadda ama miidiyaha sidii aad u gudbinayseen oo ugu gudbinayseen dacalada adduunka wax qabadka iyo shaqooyinkii uu soo qabtay komishinkanu doorashooyinkii inoo dhacay diiwaangelinadii inoo dhacay aad baan idinka mahadnaqaynaa waxaanu Ilaahay ka rajaynaynaa inay inoo sii socoto kuwa soo socday dambe inaynu sidaa u kulanno wada shaqaynteenuna ay noqoto mid sidaa joogto u iskana raali ahaano maanta waxa komishinka doorashooyinka qaranku uu shacab weynaha Somaliland la wadaagayaa halkay u marayso shaqadii loo igmaday ee ahayd inay dub u furis ku sameeyaan diiwaangelintii codbixiyayaasha inay diyaariyaan doorashada soo socota ee u mudaysnayd bisha March 29keeda 2019 taasoo ahayd doorasho isku sidkan ama oo golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka haddaba komishinku muddadii ugu dambeysay ee ka dambeysay doorashadii inoo qabsoontay November 2017 waxay soo qabteen ama u qabsoomay shaqooyin aad u baaxad badan waxaana ka mid diyaarinta qorshaha shaqada diiwaangelinta iyo doorashada golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka laba diyaarinta xeerarkii doorashooyinka iyo diiwaangelinta kuwaasoo ay ku sameeyeen wax ka bedel kaabis isku dhafid 4 xeer oo 4 nuqul ku kala yaalay ilaahayna inuu guuliyay inuu ka dhigno hal nuqul oo kaliya kaasoo kala ahaa xeerka madaxweynaha ama madaxtooyada doorashada madaxtooyada xeerka doorashada golaha wakiilada xeerka doorashada golaha deegaanka iyo xeerka diiwaangelinta codbixiyaasha taasoo markaanu dhamaystiray u gudbinay madaxweynaha jamhuuriyadda April 2018 isaguna uu sii gudbiyay golaha wakiilada welina hor yaala golaha wakiilo oo aan la ansixin waxay komishinka doorashooyinka qaranku la kulmeen daneeyayaasha doorashada ama daneeyayaasha dimuqraadiyadda Somaliland oo kala 3 xisbi qaran ururada bulshada qaran bixiyaasha iyo xukuumadaba komishinku wuxuu diyaariyay dhammaan agabyadii oo u diyaara diiwaangelinta ama dib u diiwaangelinta codbixiyaasha lagu sameeyay wuxuu kor u qaadis iyo tayeyn ku sameeyay qalabkii inoo yaalay kaasoo u diyaara inuu diiwaangelintii codbixiyaasha dib loo furo oo qaato haddaba markii uu komishinka doorashooyinka qaranku uu diyaariyay dhammaan qorshe hawleedyadii u yaalay ama hor yaalay waxa ka hor yimi caqabadahaas oo isugu jiray kuwa sharci kuwa siyaasadeed iyo kuwa dhaqaalaba oo kala ahaa saami qaybsiga kuraasta golaha wakiilada taasoo ilaa hadda aan la gaarin xal iyo heshiis midnaba laba xeerarkii diiwaangelinta iyo doorashooyinka oo udub dhaxaad u qabsoomidda doorashooyinka golaha wakiilada
iyo deegaanka isku sidkan oo ilaa hadda aan la ansixin. 3 diiwaangelintii codbixiyayaasha oo lafdhabar u ah qabsoomidda doorasho sharciguna dhigayo in doorasho kasta ka hor la sameeyo ama la qabto diiwaangelinta codbixiyaasha oo aan inoo qabsoomin. 4 xisbiga waddani oo ku dhawaaqay bishii Maarch 2018 inuu joojiyey dhammaan wada shaqayntii ka dhaxaysay isaga iyo komishinka doorashooyinka qaranka taasoo caqabad ku noqotay shaqadii komishinka doorashooyinka. 5 wada xaajoodkii u dhaxeeyey 3 xisbi qaran oo iyagana aan ilaa hadda wax xala ama isfahama aan laga gaadhin. 6 miisaaniyaddii lagu geliyey doorashadan isku sidkan ee nagu soo socotaa oo iyaduna aan weli dhammaystirnayn ama aanan wada haynin. caqabadahaasu waxay suurtagal ka dhigi waayeen in komishinka doorashooyinka qaranku shaqadiisii qabsado isla markaana sidii qorshaha ahaa waddanka ka qabto doorashooyinkii soo socday isku sidkanaa ee dhici lahaa 29 bisha Maarch 2019. waxaanu halkan ku caddaynaynaa maxay shacab weynaha Somaliland dhammaantood inuu jiro ama aynu ku dhaqanno xeerar iyo sharci oo waddan xeer iyo sharci ku socda aynu nahay. xeerarka ku dhisan yahay komishinka doorashooyinka qarankuna waa xeer number 20 oo la soo saaray 2001 kaabisna aynu ku samaynay 2017 haddana hor yaalla isagoo aynu isku dhafid kaabis iyo isu keenid baynu ku samaynay kaasoo qodobkiisa 9aad firqadiisa 2 ay sheegayso sidan: komishinka doorashooyinka qaranku waa inay cayimaan waqtiga doorashadu qabsoomayso 120 cisho ka hor waqtiga doorashadu dhacayso ama loo asteeyey, madaxweynahana u gudbiyaan si uu ugu soo saaro digreeto official ah rasmi ah muddo 15 cisho gudahooda taasoo ku beegan 29 bisha March 2019. haddaba komishinka doorashooyinka qaranku wuxuu u baahan yahay inuu shaqeeyo haddii la xallilo arrimaha inuu hor yaalla 10 bilood oo xidhiidh ah oo aan kala go' lahayn ugu yaraan si ay u qabtaan doorasho ay ka bilaabayso marka la xalliyo caqabadaha inuu hor yaalla. komishinku wuxuu caddaynayaa duruufaha uu soo sheegay ee jiro awadeed inay doorashooyinkii isku sidkanaa ee golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanku ee aanay qabsoomeyn wakhtigii loo cayimay oo ah ama ku beegan 29 March 2019. warqadda cayimaadda ah eanu ku cayimayno sharciyan waxaan u gudbinaynaa maanta oo bishii 28 madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland. waxa kale oo aanu gelinaynaa wixii faahfaahin oo intaa dheer wuxuu ku jira website-keega halkaas aad kaga bogan kartaan isagoo faahfaahsan warkanu. wabilaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaananu idinka codsanaynaa waynu wada joognaa waynu isu iman doonaa maanta waxay naga ahayd inaanu fariintaa u gudbinno ood naga qaadaan una gudbisaan dacallada adduunka iyo dadweynaheennaba in waktigii la cayimay ee doorashada 29 Maarch 2019 uu halkaas ku cayimayay oo aanay inoo dhacayn. wasalaamu calaykum.